xalay laascaano laga jeediyay ee dibadaha laga jeediyay waxay ahayd ergaaba la xoog ku soo celinayay ma sugi karayno inta la isu soo kaayo urursanayo la weerarayo horaan ugu eegnay ciidanka qaranka in daaroodoo dhan isugu yimaado lagu jeeyo maaha SSC wixii jabiyay 2 milyan oo ari ah oo maanta ku baaba'san berbera iyo ilaa inta miyigeeda u dhaxaysa oo xoolahoodii xariiran yihiin oo xasan sheekh uu xanibay ayaa maanta dareenkoodii ka hadashay Soomaaliya dana Soomaaliyeed kama shaqeyso waxay ka shaqeyn lahayd waxay hambaliyeen lahayd Puntland oo doorasho xalaal qabsatay waan ka diyaar garoobaynaa wixii colaadaha lagu soo aadan ciidamada soo hadal qaaday ee madaniga ah waxa la isweydiin karaa ciidan qaran buu dalku leeyahay waxa soo kala jira beelo kale Soomaaliyeed kamid iyaguna leeyahay hadii anaguna dawaan jabhadaha sameysano oo jabhada la sameysanayo jabhadaasi hadafkoodu ilaa goorma la gaadhay bas leedahay amba maxay ku dambeyn doonaan ugu dambeynta madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirrana waxaan leeyahay war arrinka maanta shacbigaagu ma sugi karo inta dadka reer miyiga ah xoolihiisa xidhan yihiin oo dhimanayaan inta xasan dagaalka siyaasadeed wado inaad haddii xasan uu talaabo adag qaaday oo aanu shacbiga ugu damqanayn oo ka xamar joogana loogu damqanayn ka waqooyi joogana loogu damqanayn ay dhibtooda taabanayso go'aan adag inaad ka qaadato oo siyaasadeed haddii kale waxay noqonaysaa shacbigaagu madaxweyne anoo ixtiraam badan ku haya shacbigaagu inaadan xakameyn karin cadhadooda waxaan leeyahay nimankan abtiyada ee qoriga la ordaya beelaha warsangeliya ilaa hadda tallaabo dagaal may qaadin mar walbana waxaan uga diyaarnahay inaan magaaladooda soo galaana diyaar baanu nahay inay yimaadaana diyaar baanu inaan wada hadalna diyaar baanu laakiin qolada shalayta aan ogolaanay inay soo galaan ceergaawo ee madfaca iyo qoliga diiradda leh inta guryaha lala fuulay magaalada 170 madfac lagu dhuftay ee hubiyaha iyaga wada hadal nabadeed markuu ka yimaado ayaan wada hadlaynaa horena waanu sheegay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وسندا وديال كوسو دودا برنامج كارا ام وريسي غارا وان مانتا كلنا وريسي كا قادنو بقر عثمان او محمود بور مدو oo kamid ah madax dhaqameedka Soomaaliland boqor Ismaan kuso dhow MMTV aadna kaaga mahad celinaya waqtiga qaaliga waa hagaag aynu ku bilowno kulliba maanta su'aashada ugu horeysa arinta taagan ee ku saabsan ariga xayiran Soomaaliland oo dawladda Soomaaliya lagu eedeynay inay xayirtay arinkaasi maxaa doonaysaa inaad ka tiraahdo بسم الله الرحمن الرحيم أدي أد بدر ما تصنتهاي واحد دونا هنا كوشة أرنت تاجن وحويان دتكو وحي فيليين حسن الشيخ محمود هذا الدولة دي موسسي حوني سقبتين مسبيحي وحل فيلي سياسة بعسن إنه الله يماضو أو ليه وضع هذا الذي يوجد سعود كي وضع هذا الله إنه سي وضو إرنا دتكو وحي رجيني يعني dulqaad badan oo diblomaasi oo arrimaha wax ka furfuri kara marka waxaan doonayaa inaan ku sheego Xasan Sheekh wadooyinkii hore ee aan ku naqaanay ee isagu siyaasadiisu ku dhisan tahay ee ah wajic kalbak likay yatba'ak eeyaga gaajisi sidoo ku raaco oo aan dhaqan wanaagsan ahayn oo aad arkayso cid kasta is qabtaan inuu ama cuna qabatay sida hadda Jubbaland ka socotay Puntland oo dhaqaalihii oo dhan lagala dagaalamay tan Soomaaliland oo maanta ay marayso xoolihii iyo siyaasaddiiba in lagala dagaalamo xalay waxaan dhageysanayay Ali Balcad ee wasiir dawlaha arrimaha dibadda oo la shirkii shalayta Abiy iyo Xasan ay heshiiyeen waxay ku heshiiyeen Soomaaliland in lagala dagaalamo dhinaca diblomaasiyadda anagu waxaanu qabnay oo uu leeyahay safaaradda Soomaaliland joogtay Ethiopia in la hoosgeeyo qunsuliyadda la baabi'iyo hoos loo dhigo baan ku heshiinay waxa kale uu yiri waxaan ku heshiinay سفارة Somaliland أديس أبابا إن إيادنا لا ترتيرو أو تريد أوفيس قرا أي نقطة. يعني حفيز مالقشي جناسي. سفارة داس وحوي في سياسة إنه قابشة وإنه شقيسة حدود دبلوماسية بين الدولة ودن لا لينها إلا أمريكا إلا إدول با. مركا وحوي يعني ما أنت لقى في الشدي حسن لقى في يدو أي موقته إنه حسن سياق راسفة أما قدر راو بلاوي هرتا وحندونا يا إيران همبليه هل كان كهمبليه نكلا دو عبد إسماعيل سمتر سنتر كأن دقيستي ضد وكغيب قالوا أرمها السومالي لاني حولها كجهد لي عبد إسماعيل سمتر وضدكي ودربنا من الصوماليين إن بدنا كسر شقية دنا أوليه فربدنا كل إلاوي كواي يصير ولالك أحمد إسماعيل سمتر بقى أحمد واتو إسكاجا سوق الليلو كي مركو أركي نتيجة كونفورت الله يسأل ولالتني موجودين
cabdi ismaaciil xalay wuxuu ka hadlay soomaali halka laga kala goynayo oo laga baabi'inayo inay xamar tahay waan ku hambalyeynayaa abti aad baad u mahadsan tahay dareenkii shacbigaaga aad u hadashay 2 milyan oo ari ah oo maanta ku baaba'san berbera iyo ilaa inta miyigeeda u dhaxaysa oo xoolahoodii xiriiran yihiin oo xasan sheekh uu xanibay ayaad maanta dareenkoodii ka hadashay dalka dhaqaalihiisu waad ogtihiin xoolaha nool buu ku xidhan yahay Somaliland amnigeeda kaasay ku ilaashataa cadow badan oo ku xeeran marka maanta noloshii dadka Somaliland xasan wuxuu ugu talagalay inuu baabi'iyo oo dadkii maanta shacbiga ahaa ee siyaasiyiin bay ka wada hadlayeen laakiin dadkii reer miyiga ahaa ee aan ka maarmahaynin inay neefka xoolaha dhoofsadaan inay taabatay ilaa kii ka ganacsanayay ilaa kii miyiga marka arrinkaas waxaan leeyahay axmed cabdi ismaaciil samatar dareenka shacbigaaga aad ka hadashay waa la qabaa in xamar dadka laga kala goynayo waayo anigu waxaan ahaa odayaasha saxiixayaasha ah ee labada aqal ee xamar soo saxiixay ee kala hore joogay ee horena raggii odayaasha ka mid ahaa raggii ka shaqeynayay Somaliland iyo Soomaaliland ay wada hadasho waxaan leeyahay xasan sheekh maxamuud maanta wadada uu qaaday Soomaali waxaan leeyahay labada aqal ee sharafta badan ee aqalka odayaasha ee golaha sare iyo ka baarlamaanka Soomaali ciday doonaan baha ahaadeen waxaan leeyahay war xasan sheekh waad aragteen maanta waxa dhibta dareemaysaa inankii islaantii hooyadeeda inankeedu ku dhintay meesha la yiraahdo Kismaayo ee diyaaradaha lagu raray iyo kii ka dagaalamayay gobolada dhexe ee u dagaalamayay dhibaato taabatay oo xasan sheekh oo dhaqaale raadisa oo islaantii hooyadiisii agoonta ahayd ama inankeedii iyo xaaskeedii guryihii iyo noloshii dhabta ahaa waxaan la dareenahay la damqanaynaa hooyooyinka hadlayay xamarka qaylinayay waxaan kala dareenahay dadka waalidiintoodii qabuurahooda la faagayay waxaan arkaa xasan sheekh inuu ku shaqeynayo siyaasad suusaydha oo maanta inuu Puntland iyo Jubbaland iyo Somaliland iyo cid walba siyaasad furfuran oo soo dhaweyn aanay lahayn marka labada aqal waxaan leeyahay war maanta dareenka dawladnimada hoggaanka xasan sheekh wuxuu taabtay cid walba wuu dhibay marka waxaan oran lahaa warnimayahow dhaar baad marteen ummadda waxaan leeyahay dhibaatada ka taagan Somaliland ee maanta xoolihii ay dhibaatadu ka taagantihiin neefka abucayneenka ee xooluhu ma qaadi karo $1 ma qaadi karo maanta geela in la yado 10 buu qaadaya neefka ariga $4 baa la saaraya neefka looda $8 baa xasan loo jaraya arrinkaasi wuxuu ka hor imanayaa heshiiskii hore dawladda Somaliland iyo hore awalba xasan u buriyay Ankara lagu galay ee ahayd iyo kii Imaaraadka lagu galay Sheekh Shariif ay galeen ee ahayd in dhaqaalaha iyo arrimaha madaniga la isu nabadgeliyo xasan taana uu ka hor yimi marka arrimahaas oo dhan waxaan leeyahay baarlamaanka war maanta sanad baa idin haray ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto maanta siyaasadda xasan way la dhiban tahay haday tahay ta joogta Kismaayo ilaa iyo ta Somaliland iyo ta joogta Puntland shacbigu kula dhiban yahay inaad talaabo sharciga ku haboon arrinka ka qaadaan oo lagu xakameyn karo arrinkaas madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirana waxaan leeyahay war arrinka maanta shacbigaagu ma sugi karo inta dadka reer miyiga ah xoolihiisii xidhan yihiin oo u dhimanayaan inta xasan dagaalka siyaasadeed wado inaad haddii xasan uu talaabo adag qaaday oo aanu shacbiga ugu damqanayn oo ka xamar joogana loogu damqanayn ka waqooyi joogana loogu damqanayn ay dhibtooda taabanayso go'aan adag inaad ka qaadato oo siyaasadeed haddii kale waxay noqonaysaa shacbigaagu madaxweyne anoo ixtiraam badan ku haya shacbigaagu inaadan xakameyn karin caradooda oo arrinkaasi dhib badan gudaha siyaasadda Somaliland dhibka keenay arrinka inaad ka hadasho ka dagaal gasho sida ugu haboon aad uga howl gasho waxay boqor waan ku fahmay taasi hadaba hadii saas noqoto uu xasan sheekh maxamed ku siyaad kaysto inuu ariga saaw aan qabateeyo saameyn tilaba ku yeelan kartaa wada hadalkii la qorsheynay maadaama dawladda cusubna ay u furfurnayd inay wada hadal la gasho dawladda Soomaaliya siyaasaddiisu ay u furfurnayd inay wada hadal galo xasan sheekh maanta dagaal buu cilaamiyay Somaliland oo nolosha ah
oo amnigi iyo dawlad dhiskii iyo nidaamkii burburintiisii ah oo dhaqaalaha amniga lagu ilaalinayo ciidamada raashinka loo siinayo cashuurtaas ahay marka waxa weeyaan si xoog loo saameynaya laakiin Somaliland dagaal caalamiya bay ka gali kartaa xildhibaanada naga jooga iyo sida Cabdi Ismaaciil Samatar inay ka bareeraan oo ka muuqdaan oo dadkooda u heeliyaan waan oran lahaa Soomaalida kalena iyo golayaashooduna inay garab siiyaan arrinkaas aan kula talin lahaa laakiin Cabdi Ismaaciil Samatar wuxuu sheegay in marka la isku dayin warqad la saxiixo la qoro arrinta lagu cambaaraynayo ugu badnaan 10 qof baa dhaafi weeday iyagoo dhowr iyo 50 ku jooga meesha 10 qof dhaafi weeday in saxiixan warqadaas wallahi way ku dhaliilan yihiin inkastoo goluhu fasax yahay iminka waxa jirta oo ama dadku dhoof ku kala maqan yahay laakiin waxaan ogahay baarlamaanka sharafta leh ee Soomaaliyeed ee labada aqal ilaa 100 xubnood in ka badan inay ku saxiixeen arrinka xoolaha iyagoo cambaaraynaya dawladda waxaan leeyahay war tallaabadaas aad qaadeen dadka reer waqooyigana waxaan leeyahay war shalayto waad ogtihiin tribka hore Xasan Sheekh 3 xildhibaan ay dawladdu gacanteeda ku dishay Xasan Sheekh Maxamuud tan ugu dambaysan nin aan Soomaaliya ka maarmin Cabdirasaaq Muuse Dahable caalamkuna ka maarmin aqoontiisa iyo aqoonta uu leeyahay hawada sare xilfaaltankii ka dhex dhacay dawladda Muuse Biixi iyo taas in dil qorshaysan Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladdiisu u geysatay ilaahay baa naftahay maalin bay baxaysaa waxaan yaanay arrinkaasi cabsi idinku reebinaya dadkiina iyo dalkiina maanta noloshiisi qof kasta oo geed kasta uu fadhiyay ay saameysay inay wax ka qabataan baan soo jeedinaa marka maxaa la gudbaa dawladda Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro hogaaminaya cusub arrintaasi ariga ku saabsan inay si wax uga qaban lahayd maxay ka qaban kartaa waxa la gudboon dagaalkii Jarmalku soo qaaday Yurub iyo inuu dalka adduunka gumaysto ninkii Hitler Prime Minister Churchill ka horreeyay wuxuu yiri u ogolaaday inuu Yurubta kala dhan qabsado aanu isaga u daayo Churchill iyo ragii ka qaylinayay ahaayeen laakiin tallaabadii Churchill inuu qaado oo uu yiri yaxaas haddaad damcado inaad siiso hilibka dadka ha u qaadan inuu adiga ku nabadgelinayo ana waxaan leeyahay Somaliland meel badan baa laga soo duulay in la wax la yeeleeyo deedna wuxuu qaatay siyaasadda aggressive-ka ahayd ee Jarmalku wadayteedii kantaaliyii horreysay baa Holland markii laga soo riday jawaabtii uu ka bixiyay inuu Mareykan hawlgeliyo inuu Yurubtii hawlgeliyo in Jarmal sida lagu jabiyo waxaan leeyahay Xasan caga badan kuma taagna madaxweyne Ciro waxaan leeyahay waxaanu ka filaynaa siyaasaddii Churchill oo ku difaacay Yurub oo ku difaacay adduunka taas waad qaadi kartaa gacanteeda iyo hawsheedana wadada shacbigaaguna ku barbar taagan yahay mahadsanid iskana xid arrimaha diblomaasiyadda ee uu Xasan wado mar haday halka marayso oo nolosha shacbigaaga marayso waa hagaag taasina halka ka gudubno aynu soo noqono xagga Soomaaliland gudaheeda dawladdii baa la soo dhisay Cabdiraxmaan Ciro wasiiradii hore loo sheegay sidoo kale waxa xilkan wala magacaabay ilaa ya hadda si kugu muuqataa dawladda cusub ee la magacaabay madaxweynuhu xilliga sugayay inuu dawladda saweeyay shacbigu inay waqti siiyaan baan qabaa waxna leeyahay maanta haddii hal qof uu magacaabo oo wasaaradaaba wada xidho Cabdiraxmaan lagu khasban yahay in la shaqeeyo waayo dalka dagaal badan baa ku furan dhaqaale la'aan baa ugu yimi meesha waxa weeyaan dagaal siyaasadeed baa ku furan oo Xasan Sheekh maanta bilaabay waxaan leeyahay marka madaxweynaha iyo dawladdiisa waan hambaliyay anigu waxaan leeyahay si kastoo u dhiso isaga laga yaqaan meelaha ka qaloocato inuu toosiyo laakiin anigu maantii hore waxaan ku yiri anagu waxaan nahay beelahan haddaan ka u hadlaana jabar jeclo mulkiilayaasha dawladdaanu nahay ninka xoolihiisa in loo raacdo iyo inuu raacdo isagay u taala mid walbana sharaf bay u tahay marka anagu dawladda waan taageersanahay wax la wuxuu soo dhisana waa lagu la shaqeynayaa cid alla cid uu gumidana waa lala shaqeynayaa tijaarta iyo ganacsatadana waxaan leeyahay lala shaqeeyo maanta waxaan leeyahay dadka reer Somaliland ee qurba jooga ee dhaqaalaha haysata maanta in la furo sanduuq degdeg ah oo dhaqaale maadaama uu inuu kaga furan yahay bariga dagaal culus oo qorshaysan oo Somaliland lagu wiiqayo dawladda maanta in dhaqaale la isla garab taago in ciidamada G36 iyo SSB dhaqaale la isla daba taago intaasna wax laga qabto horumarinta in maadaama dhaqaalihii xoolaha iyo ganacsigeena Xasan Sheekh soo duulay ay noqoto inaynu maanta inaynu dhinac taagno xukuumadda shacbi ahaan iyo arrimaheena amniga
taa haddaynu halkaa kaga gudbino taana oo tan ku saabsan ciidamada soo hadal qaaday ee madaniga ah waxaa la isweydiin karaa ciidan qaran buu dalku leeyahay waxaa sidoo kale jira beelo kale Soomaaliya kamid iyaguna leeyahay haddii annaguna diwaanuna jabhada aanu samaysano oo jabhada la samaysanayo jabhadaasi hadafkoodu ilaa goorma la gaadhay bad isleedahay amba maxay ku dambeyn doonaan ugu dambeynta horta anagu waxaan nahay raggii odayaashii dhaqanka ee Soomaaliland hubka intay ka ururiyeen dawladda in cigaal ku dhiibay wadadaasaan ku taagnay dadkii Soomaaliyeed is wada dilayna markii aanu dalkii xoreynay gacan amni aan u wada fidinay gacan nabadgelyo walaaltinimo fadnay cid walba tasaamux baan u sameynay anagu maanta waxaan leenahay anagu waxaan kamid ahay dadka degaa Sool Sanaag iyo gobolka ay cayn ula bixeen buu hoodlay oo degmay Burca kamid ahayd abtiyaashay dulmiga markii lagu sagaalkii bilood ee dagaalka uu Muuse dagaalka bilaabay aanu arkayno siyaasad qaloocatay inay ahayd waxaan ahaa anigu raggii dhinac taagnaa raggii lahaa war intooda wada hadal baynu dadkan loo galay markii hore maantana haddii wax qaloocdeen wada hadal aan la galno dadkii taageersanaa baana dadkii qoryana maanu qaadan ciidanna maanu samaysan qoladii abtiyaday iyo aan ehelkayna na wada lahayn waanu qaabo anigu aan saan ognahay inaan uga badannahay siba beelaha dhulbaantay inaan uga badannahay halka ay cayn bixiyeen buu hodlo 70% anagu degno degmada buu hodle meesha la yado Sool aanu degno 50% aanu degno ama 60 ba meesha Sanaag la yadana marka aanu dhulbaantay ka hadlayo hal degma ay ku leeyihiin ma jirto tuula qolofiliyaal ay ku leeyihiin waxaan loo ogolaanay inay intooda degaan waxaan dawladda ku barash gareynay in ama la siiyo aan la weerarin ciidamadii qaranka baanu ka hornay waa la ogaa laakiin marka ay abtiyaday ay qabsadeen intoodii dagaal aanu anagu bar ka ahayno ciidankaasi halka kaga yimaan Somaliland iyo beelaha isaaqtoona aanay gacan siinin oo lagu diidanaa dawladda inay dadka ehelka wax yeelayso maanta waxay bilaabeen inay magaalooyinkii gubaan inay ceerigaabo aan wada hadal nooga socday oo horena wada hadal aan uga lahayn inay xoog yiraahdaan waan ku qabsanaynaa ani cidna u joojin marka waxa kale oo bilaabantay propaganda siyaasadeed abtiyaday ma ay shukuriin oo ma oran intayadii baan haysanaa wixii kalena aynu wada deganayna ku kala guuri karin aan ka wada hadal wax la bilaabay in la yiraahdo 4 waxay ka shaqeynayeen baanu baabiinay daqiiqad baanu ku baabiinay marka anagana waxa naga go'an inaan tusno maamul goboleedkii doonayeen inaanay maamul goboleed heli karin oo aan majority galeenahay oo maanta ay Sanaag luus gareeyeen oo maanta ay degmadii ay cayn ula bixeen buu hodle 70% ka maqan yahay oo maanta ay 60% ka maqan yahay Sool inaanu taas tusno laana waxa weeyaan ma aha dad doonaya inaanu wada noolaano waad arkaysaa xalayto khaatimo shirki ay gashay ilaa hogaamiyaha u sareeyay madax dhaqameedadii dagaal bay iclaamiyeen nabad baanu meel walba kaga baaqanay anu waxaan leeyahay taasna albaabadii nabad ku baaqa waanu iska xidhaynaa xukuumadana kama ogolin wax nabada inay kaga hadasho intay ilaa iyagu wax bedelayaan laakiin boqor raaliyaha haddii idinku ugu dhino madax dhaqameedyadu intaan dawladda la gaadhin maxaa caqabada idin haysateed u wada hadli wadaan waas taqaaneen garaadada waas wada taqaaneen maxaa idinku kala dhex gudbay inaad wada hadashaan oo tiraahdan maxaa dalkan iyo dadkan iyo namadan yaryar ee dhimanaya waxa la anagu waxaanu taagneen ceergaabana walaalayaal oo wada leenahay soo galno intiina aan magaalooyinka kale ceergaabo umaba ina ka dhaxaysee aanu magaalooyinka kale waynu kala deganahay wada nabad ku wada noolaano iyaga diiday iyaga maanta waxaad arkaysaa maanta go'aan bay ahayd khudbadii laga baaraan degay ee xalay laascaanood laga jeediyay ee dibadaha laga jeediyay waxay ahayd ceergaabo la xoog ku soo celinayna ma sugi karayno inta la isu soo kaayo urursanayo nal weerarayo horaan ugu eegnay ciidanka qaranka in daaroodoo dhan isugu yimaado lagu jeeyay maaha SSC wixii jabiyay guul aanad lahayn inaad sheegato kaliya maaha waxaan ognahay daarood meel joogaba ilaa Jubbaland in Muuse biixalka lagu dagaalay inaanu anaguna in ciidankaasi meesha ka soo baxo aanu ka shaqeynay inaanu dagaalano aanu ku talin laakiin maanta waxaanu diyaaruna ciidankan SSBG G36 wuxuu sameeyay markii aanu aragnay inay xukuumadda kaligeed hiil walaal iyo daarood dhan soo duulay aanay ku filayn inaanu anagu hantidayada hub gelino gaadiid gelino isbarbar taagno dadka sheekeynaya leeyahay waxaanu ka furaynaa Hargeysa iyo meelaha kale aanu jabhada ka furaynaana waxaan leenahay qaranku difaac u baahan yahay hadaa difaacaysan kaalay anagu taayada dawladda ku wareejinayna hadaa dagaalamaysan oo dalka difaacaysaan hadaad siyaasad wada hadal keenaysaan oo fiican
aan ka wada hadlayna laakiin inuu hargeysa ka hadlo aan ogeyn dhibaatada ay haysata oo shalayto inta ceerigaabo iyo burco iyo meel walba layga saaray aan walaaltinimo ogolaaday aanan hantidaydii ka hadlin layga dhacay maantana inta lay dilay oo dagaalkii laygaga bilaabay ceerigaabo iyo boodley iyo boqdharkayn iyo meel walba oo layga barakiciyey maanta aan u soo diyaar garoobay inaan dhulkayga nimanka tolka aanu nahay mar hadday xabadda caaradeeda ka fursan weydo in laysku difaaco ma jeclin ma hayno beelo daarood oo ilaa boqorkii daarood berigii laascaanood siisay waan la hadlay boqor burhaan waxaan ku yidhi waxbaad ka qaban kartaa dagaalku intaan halka dhoofin wafti soo kaxayso hargeysa kadib wixii taa ka dhulo oo daarood leeyahay inta la haysto nabad ka shaqayn maayo annagana waxaanu leenahay taako aanu leenahay inta lagu soo duulayo loo leeyahay calan aanan ogolayn iyo tala aanan ogolayn la keenay madaxweynaha Soomaaliland iyo dawladana waxaan leenahay raalli naga ahaada nabad kama ogolin maalinta nabadgelyada ogolaadaan bedelaan luqadan ay ku hadleen xalay go'aan culus baa ka dhacay laascaanood ay garaadadii iyo hogaamiyihii iyo raggiisii bay ku ballan qaadeen inay u diyaarsan yihiin oo haystaan wixii ay ku difaaci ku geli lahaayeen ceergaabo ay ku soo codsan lahaayeen intay maamul goboleed ku noqon kari lahaayeen annana waxa weeyaan haddii baashu xaasidnimo tahay oo aanay intooda doonayaan inay Soomaaliland tusaan caalamka inaanay wax jiri kara ahayn annaguna dad aqabiya oo nacsiyaamanihiin intayada waa difaacanayna cidii noola timaadana nabad hoosaasana gacan biraan ku qabanayna marka waxa jiray arinta ku saabsan waxa jiray isimo isxilqaamay oo tagay oo la sheegay qolada dawladda Soomaaliland ay wada hadal yeesheen oo ay ogaan tusaale ahaan garaad kulmiye oo kale ay oonba bixeen laascaanood oo ila soo hadleen idinka markaasi ma leedin la soo xiriiro halka waan ma ka soo naasacad yahay rag annaga naga mid ah uma nu dhamayn sheekada oo dadka waliba dadka ay arinku khusayso ee sool iyo sanaag iyo buuhoodle intii isa wada digtaa wax tala kuma ilahayn laakiin se walaalaha iyaga hargeysa degan madax dhaqamoodkooda iyo xukuumaddu arrinka way qoladaasina way isxil qaantay oo nimanka absame ee garaad kulmiye iyo Sheekh Muxyidiin iyo hogaaminayaan iyaga isxil saaray iyaga ka damqaday colaada iyaga ka shaqeeyay xukuumadda iyo ragaasina way loo ogolaadeen laakiin waxa ay muuqataa anagu ragaan ku kalsoonahay ragaasi way rag wax qaban kara way hadday maanta yimaadaan iyo hadday bari yimaadaan garaad kulmiye ragiisuna irgin nabadeed waanu doonaynaa laakiin ragii ka yimaadeen waa lagu maantii hore sacbi xagga horaan ka gowracay xagga dambe ka gowracay bay ahayd oo markay ka yimaadeen xalaytii laascaanood laga dhawaaqayna waxay ceergaaban xoog ku gelaya irgadii nabadeed ee qoladaasi wadeen xukuumadda Soomaaliland iyo shacbiga iyo dhaqanka iyagu mid kaayna ma diidin talo dhaqan iyo siyaasad ba hogaaminaysa ragii aan wax wada lahayn weeyaan ragii aan wax wada lahayn ciidan bay samaysteen hub bay samaysteen magac bay la bixeen annaguna ceeb maanu samaynay ciidan baanu samaysanay hub baanu samaysanay C36 iyo SSB baanu la baxnay waanu difaacanayna dalkayga xukuumadda oo gacansan xukuumadda markay nooga soo baahato gaadiidkan iyo hubkan iyaduna ay ku filaato ay gufayso meelahan wax ka tabanayno dhan xisooma qabno inaan hub haysano cidnaba u haysano dad nabadeed baan noo ku yaqaan marka dawladdu ku rajin doontaan markay hawsheedu dhamaato markaan ku kalsoonaano dawladdu inay amnigayga ballan qaadayso oo ku wareejinayna marka ciidamadan ma idinka amar siiyo oo dagaal geliya oo abaanduule u ah yaa ciidamadan amar siiya way ka amar qaataan anaga ciidamadeedu maba dagaal amar ma basiinaba difaac baan ku jiraa dalkayga iyo dadkayga aan difaacanayna maamulka iyo dhaqankana waa noo dhisan yahay kii ciidamaduna waa noo dhisan yahay mana doonayo arinta sida SSC u dhisan tahay sida Khaatumo u dhisan tahay maamul difaac baan anagu u dhisanahay xukuumadda Soomaaliland talaabada amniga iyada noogu madax oo meeshii dagaal kaga furmo maanu gacan siinayna gacan siin baanu nahay cidna anagu ma gardaraysanayno cidna kuma doonayno nalaguma yaqaano ilaa SSB oo meel gashay waad arkaysaa SSC iyo jamaahiir baa meel galay waad arkaysaa ceerigaabay galeen baad maqlaysaa boqorkeen baad maqlaysaa anagu naftayada iyo dhiigayga iyo dadkayga difaacayna waxa daba jira dadkan kale iyaguna dhamaandhow tolo waxa shir ka jiray bariga Sanaag oo ku saabsan arinta ceerigaab waxa leeyahay dad baa ka barakacay dadkaasi si gurigooda loogu soo celin karaa si nabada tiyoon dagaal dhicin horta dadka barakacay kooyaga ugu xun cid aan ka barakacin magaalada ma jirto marka reality laga hadlayo meesha amni dar haday taado la barakacaya laakiin siyaasadii lagaga barakacay iyo cidii gardarada lahayd codbaahiyaashii hore iyo telefishinadii hore aan ka hadlay bankaga hadlo wax bari baanu ka nahay ciidanka Soomaaliland ka yahay ciidanka shacabkuna ka mid yahay nabad baanu darbanahay anagu laakiin hadda nooma muuqato nabadaanu dadkayga ku seexino waxaanu arkaynaa gulf nagu soo socda waxaanu arkaynaa diyaar garow 100% waxaanu arkaynaa rag rasaasta u go'aanta oo qaybsanaya anaguna dad aqbiya ah oo doqomaameen yihiin waxa weeyaan difaaci waa naga go'ay ma laga maarmi karaa in xabada isku ursado 2025 oo dhalinyarta la kala joojiyo
anagu uga duulayna ciidan duulaya ma haysano haddii la soo helo SSB baa duushay TX baa duulay cid ku duushay haddii la soo helo annaga waxaan ka dhacay nimanka weerarka ee waxaan wada lahayn intay yadin dawlad gaar ah ka dhisanayna magaceedii sheegtay ee sool sheegtay ee sanaag sheegtay ee degmadii burca ka tirsanayd ee buuhoodle aan 170 kale sheegtay ee duulaanka markii nabadda u baahdaan baan uga shadhigaynaa aanu tagaynaa intay colaadda aad shalay waad arkaysi dawlad deegaanka nabadii ka dhacday madaxweyne gacan nabadeed buu fidiyay anaguna waa ku taageeray waana la shaqaynaynaa markay taasoo kale cid door ka qaadata la helo oo qoryaha iska dhigaan oo nimadoodan raamaha la soo baxay joojiyaan annaguna waxa weeyaan cid magaalada nala digtana ma diidayno cid deegaan nala digtana ma diidayno wada hadal sool iyo sanaag iyo buuhoodle xamarna lama tegi karaan puntlandna lama tegi karaan maamul gaar u leeyihiinna kuma maamuli karaan xaafadooda waxay u geyso iyo deegaankooda waxay u geysaan uga ogola laakiin aad waxaanu isweydiin karaa dawladda Soomaaliya saameyn inteeda ku yeelan kartaa inay dhulkana badayso waayo se loo yahay waxay iyagu doonayaan si dawladda Soomaaliya u tageen waxay doonayaan maamul goboleed sameystaan maamul goboleed kamid ah waxa lagu yiri laba gobol iyo barkeena ugu yaraan tusaale ahaan Sool iyo Sanaag iyo taas sheegtay gobolka Buuhoodle leeyahay Cayn ayaa lagu yiri keena marka dawladda Soomaaliya la oran karaa homework bay soo dirtay aba 10 guriga u soo dirtay inay saddex gobol keenan si ay maamul goboleed u noqdaan dawladda Soomaaliya ma xakameyn ka saameyn ku yeelan kartaa inay joogto dawladda Soomaaliya dana Soomaaliyeed kama shaqeyso waxay ka shaqeyn lahayd waxay hambaliyeen lahayd Puntland oo doorasho xalaal qabsatay bay dimuqraadiyadda nidaamkeeda ay hambaliyeen lahayd waxay hambaliyeen lahayd oo la shaqeyn lahayd oo gacan siin lahayd Puntland oo lagu soo duulay buurihii labadii buurood la midna shabaabka haysan Jubaland buu jeedaa mise doorashada Puntland doorashadii hore Puntland tii hore ay qabsadeen iskood may hambaliyeen tii qof iyo codka ahaa ee dawladaha hoose iyo registrationka iyo diiwaangelinta lahaydna may hambaliyeen tii tan hadda uu ku jirto Puntland ee la dagaalamayso Daesh iyo dhulkii ajnabi soo qabsaday dad ajnabi soo qabsaday may hambaliyeen gacanna may siin dawladda Soomaaliyeed iyo horumarkeeda iyo sukeenkeeda kuwa mashquulsana waxay dawladdan xasan ku mashquulsan tahay inay boobto shanta dambe soo socda doorashadii dambe ay boobto waxay u diyaarsan tahay Soomaali cid walba meel kasta oo nidaam ka jiro burburiso tanna waxa weeye qoladana ma ictiraafayso wuxuu ugu sargooyay inta sano uu joogay buu yiraan maamul ku meel gaara samad garan mana ictiraafay laakiin uu isku kaay dilaya uu isku kaay burburinaya annaga inoo taala in maanta Soomaali ay u baahan tahay inay qoriga iska dhigto annaga u baahan tahay cid waliba wixii dantu ka dhaxaysa inay ka wada hadasho waxaan leeyahay nimankan abtiyada ee qoriga la ordaya beelaha warsangeliya ilaa hadda tallaabo dagaal may qaadin mar walbana waxaan uga diyaarnahay inaanu magaaladooda soo galaana diyaar baanu nahay inay yimaadaana diyaar baanu inaanu wada hadalna diyaar baanu laakiin qolada shalayta aan ogolaanay inay soo galaan ceer gaabo ee madfac iyo qoriga diiradda leh inta guriga la fuulay magaalada 170 madfac lagu dhuftay ee Hubiyaha iyaga wada hadal nabadeed markuu ka yimaado ayaan wada hadlaynaa horena waanu sheegay laakiin duulaan cidna kuma nihin cidna dhul ay leedahay deegaan ay leedahay kuma bulin dib qaraxno muuqata de ma gelayno mana taabanayno biyo guduud ma taabanayno yube ma kuma duulayno waxa weeye cid walba anagu waxaan leenahay war anagu inta yadan aanu leenahay aanu deegaan ka nahay haddaan nala degtaana soo dega oo nabad ku soo dega haddii ay leedihiin xoog baan ku soo gelaynaa waa difaacanayna waxaan leeyahay war xasan sheekh iyo dawladdiisu waxa weeyaan soo dhaweynaysa weynay Puntland ku burburiso inaad gacan ka siisaan duulaanka ay ka wado Jubaland laakiin se waxtar idinma wadee inaga ayaa dani isku keen qabato iskuna keen haysata baan leeyahay saamaha hadii la iska lusho on sidaasi halka mustaqbalka muxuu noqonayaa maqaab siyaasi lagu daweeyo dhibaatooyinka ka jira dhulka Soomaalida guud ahaan dagaalada ka socda mise qaab siyaasi mise qaab dhaqameed horta qaab siyaasadeed uu taagan yahay oo reer SSC maalin kasta reer Khaatamo maalin kasta ay hadlaan garaadadooda iyo odayaashooda waxay leeyihiin oo ku faanaan oo dhaantada ku ciyaarayaan 4 sano waxay ka shaqeynayeen baan ka baabinay annaguna waxaan leenahay labadii sanadood waxaad ka shaqeynaysaa inaad lahaydeen maamul goboleed baan noqonaynaa inaanu baabino xaq baan leenahay oo annaguna si aggressive ay iska keen celino laakiin haddaad leedahay warintayda meeshaan doonaan la qabanaynaa wixii iskaga heshiiseen jiraan aan ka wada hadalno waan soo dhaweynaynaa laakiin ma muuqato hadda cid loogu baaqamayna diyaar garow qurbaha iyo meel kasta ay ganacsatadana aanu dhaqaale uga gorayna sidaan dalka ugu difaacay way waxa noo muuqata maanta shirkii xalayto ee dabaaldegii ay yiraahdaan xornimada SSC Khaatamo ay yiraahdaan
go-aamadii ka soo baxaan arkaynay oo ilaa hogaamiyuhu khudbaddii uu jeediyey khudbaddii dhiigga lahayd ee dagaalka lahayd ee aan in nabadi ka muuqanayn iyaga iyo isamada ay halkaa kaga hadleen diyaar garowgeeda iyo taladeedaan ku jiraa qaadanaynaa hagaag waynu soo gabagabaynaa waxaan ku dhunahay gabagabadii waxaan soo ku weydiin lahaa arrin ku saabsan xagga tusaale ahaan horumarka gobolada baridood ka horeysa ilaa Laascaanood inteena markaa garaadadan Laascaanood ayna dagaalka ku baaqin arrimaha bulshada hadday noqoto waxbarasho hadday noqoto caafimaad sidii uu dhulka barigo dadka aan war u hayn sidoo ha markaa iyo imika hadii la isku barbar dhigo dhaqan dhaqaale hadday noqoto waxbarasho dhaqaale cirkaas maray cirgaabaan maanta laga qaxayna cidda qori ee ka faa'iideysay ganacsiga boosaaso ka shaqeynaysay waxay ahayd dawladda Puntland oo dhaqaalaheeda halka la keenay dadka kale ee Soomaaliland dekada boosaaso xoolaha badan inooga yimaanayeen safarku inooga yimaanayeen cirgaaba cidda ka macaashta iyaga ahaayeen dawladdii Soomaaliland markii ay Laascaanood iyo Jidda maamuleysay horumarkii ay gaarsiisay hadday biyo tahay hadday leer tahay hadday horumar tahay hadday caafimaad tahay hadday waxbarasho tahay wax dambe lagu ma darin intii burbur ku dhacay wax lagu daray ma jirto maanta annaga waxbarashada dawladii hore iyaanay sidan intan ay tiraahdo khad cas ka yiraahdaan hay'adu yiraahdaan mooye laakiin xukuumadihii joogo soo maray dalka way wada dadaaleen wax badan bay ka qabteen wax badan baan u qabsoomay laakiin hadda dawlad arkaysa in midaan jaamacadda ugu fikirayni nin waliba wuxuu ku oranaya qori iibi bardaloola qori waa ka iibi technical soo iibi wuxuu arkaa noloshiisii gurigii hooyadiisoo la gubay hooyadiisoo magaalada khudaarta ku iibinayso la dhaawacay ceerigaabo odagii mu'adinka ahaa ee la xabadaynayay marka dee waxa weeyaan hadda dib u dhac baa muuqda wax la ilaa libaax kuula tegey iyo isla kuula teg dee dagaalkii xaggaa ka soo bilaabmay waa ka maanta ceerigaabo lagu soo duulay maraya nabadgelyada ku fadhiyey dib ku muuqata taas wadama waxaan arrin ka yar weydiinay ku saabsan Sultan Saciid iyo Hargeysa Club wuxuu sheegay in la siiyay mar hore oo dad badan waxay leeyihiin waa hanti qaran arrintaasi aduu si kula muuqata arrintaasi wada Sultan Saciid hodelka asal ahaan looma siin dawladda iskale dhulkana iyada iskale laakiin Sultan Saciid waxa hodelka loo siiyay 50 sano laga kareeyay inuu maalgashi fara badan uu ku sameeyay iyada qurxinay dawladda ku samaysay dhaqaalaha la geliyay ee hore Sultan Saciid baa geliyay lacag badan buu geliyay malaayiin Sultan Saciid hadda rama laha waa hodelkii dawladda laakiin waa laga kareeyay buu ku doodaya dawladda tan Cabdiraxmaan Ciro waxyaalaha Muuse Biixi ku rinay waxa kamid ah hantidii beesha aanu ka soo jeedno oo madaxweynuhu ku xadgudbay xukuumaddan way ogtahay Sultan Saciid hodelka inay hanti malaayiin kaga jirto dawladda shacbigeeda inay ilaaliso weeye Sultan Saciid ragii ugu tugtugta roonaad isbedelkan buu kamid ahaa madaxweynuhu wuu ogyahay hantida kaga jirta Sultan Saciid hodelka xaqiisa xayiigta hodelka ma sheeganayo Sultan Saciid laakiin wax loo geeyay 50 sano oo aan la burin oo warqad lagu soo saarin la burin hadii la buriyay heshiiska in wixii ka galay la siiyo bay ahayd ilaa hadda Sultan Saciid hodelka ama hal dhisay ama lisine xoog buu kaga maqan yahay sifa sharciyana loo marin saasaan aaminsanahay imikana waxay madaxweynuhu xogaal buu ka yahay dawladdiisan cusubna xogaal bay ka tahay Sultan Saciid sidoo xaqiisa u heli lahaa iyagay baan ka sugaynaa wax khilaafana dawladda tan beesheeda iyo Sultan Saciid toona kama dhaxmarin laakiin Cabdiraxmaan madaxweyne Cabdiraxmaan iyo dawladdiisan ka sugaynaa hantidii dawladdu meeshu waa dhul dawladeed laakiin hantidii naga gashay hadday hodelkii dee loo qiimeynayaan oo dawladda ay Sultan Saciid celinayaan iyo haddii Sultan Saciid iyo anagana kala xaajoonayo anana wadayaashiisi baan welcome baan leenahay dawladda waa hagaag ugu dambeyntii waxaa jiri jirtay arrin ku saabsan shir ka dhacay bir dhexdeeda Addis Ababa oo ku saabsaneyd beelaha direed oo Sultan Dawal madax u noqday shirarka halkaas taasi arrin ku soo dhamaatay horta dhismaha aanu halka ka dhisnay dhisma direed buu ahaa Sultan Dawal waxa weeye boqorka guud ee beelaha direed baan halka ugu dooranay isaga iyo guddi kale guddiyadana way shaqeeyaan way dhisan yihiin laakiin guddiyo nabadeed bay ahayd shir nabadeed buu ahaa anagu marra colaad cidna ugaan samaysay wadaagtay G21 iyo D5 iyo waxaan oo dhan colaad bay u sameysay laakiin anagu guddi nabadeed baan u sameysanahay ilaa haddana waxa weeyaan ma shaqeeyaan guddigaasi markaa ma shaqeeyaan guddigaasi ma shaqeeyaan laakiin anagu guddi nabadeed baan u sameysanahay ilaa haddana waxa weeyaan guddi nabadeed baan u sameysanahay ilaa haddana waxa weeyaan guddi nabadeed baan u sameysanahay uu shaqeeyaa
guddoomiyihii ama boqorkii direedna waa naga yar xanuunsanaya waan u ducaynaynaa Suudaan Dhawal waxaan leenahay dir dee waa wax abtirsiya ah oo aanu naga dhaxayso dhiig iyo dhaqaale naga dhaxeeyo diyaar baan u nahay hadda reportkaanu ka tunnayo waxaanu shalay beelihii isaaq baa shiriyay sidii beelaha direed hawshooda loo dardarin gelin lahaa si cid kasta ay la nool yihiin nabadgelyo ula noolaan lahaayeen nabadgelyo la noolaanayana maaha in baryo nabadeed qura la yaadee waan ka diyaar garoobaynaa wixii colaadihii nagu soo aadan dir ahaana hiilkii iyo xeerarkii aanu samaysanay waa kuwa shaqaynaya boorkun baanu ka tumaynaa ya meel kastoo dir joogo siduu xuquuqdiisa u heli lahaa si waddan nabadgelyaa loogu dooni lahaa guddi baan noo dhisan maamul baa noo jira maamulkaasaanuna uga dambaynaynaa aanu u dooranay Itoobiya ku dooranay oo weli waqtigiisiina aanu dhicin isagana aanu ka sugayno shirarkii hordhaca ahaa ee degdega ah sidoo qaban lahaa maadaama xaalada badan isbedel ku yimid boqor Cismaan Aw Maxamuud Buurmadow aad iyo aad u mahadsan tahay waqtigan kaga mahadcelinayaa وهاك داود أنت سوق قبلنا ورثي كوبان وأنو كقادرين بقول عثمان أو محمود بورمدو أو كميدا سلاطين تا سومالي لاند تاني يأكلون تنبي برنامج كلمة لمدا نبت قليو